بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. waxaan ku soo jiray kitaab العلم. باب العلم والعظة بالليل حديث كاسان ودن بيي وانا ku celinayna. باب العلم علمiga iyo والعظة wacdinta بالليل habeenka la iswacdiyo in habeenka gudihiisa qofku faamilkiisa iyo caruurtiisa iyo dadka marka habeenka la baryay ama la jooga inuu maaragtay wacdiyo. عن أم سلمة waxaa laga wariyay رضي الله عنها الله ka raali noqdee waa Hinda بنت أمية ابن المغيرة قالت waxay tiri استيقظ النبي نبيgu ayaa soo baraarugay habeenkii ذات ليلة habeen فقال wuxuu yidhi سبحان الله إلهي baa hufan يعني waa kelimatu يعني استعجاب ما أنزل الليلة habeen maxaa la soo dejiyey caawa oo min الفتن في النooyin ah iyo وما فتح maxaa la furay oo min الخزائن kaydad ah. يعني riwaayooyinka qaarkood waxay sheegayaan rasuulku inuu ku riyooday fitanta maaragtay dhici doonta oo Cumar albaabka u yahay wixii Cumar ka dambeeyo oo Uthman iyo Ali iyo wixii ka sii dambeeyay in fitanta iyo isdilka iyo harajka uu badanayo ilaa qiyaam saaca iyo wama futiha min al-khaza'in waxa weeye khayraadka ummadaha muslimiintu helayaano maaragtay furus la furanayo وعليكم السلام oo la furanayo maaragtay bilaad fara badan oo dawladihii waaweynaa waxyaabahaas oo dhan rasuulka markaa tusay markaasuu rasuulku yidhi ayqidu sawaaxib alxujar qolalka kuwa saaxiibka ah maaragtay kiciya oo xaasaskiisu masaajidka ayay olog la ahayeen ama daris faruba kaasiyatin yani mid dhar wadata badana fi dunya adduunyada caariyatun hadii la wacnaa hiya caariyatun iyadoo markaas dhar la fil aakhirati aakhiro yani laba macnaba way yeelan kartaa. adduunyada waxay isu haysataa inay labis wadato laakiin labiskeedu ma ahan labiskii sharciga ahaa oo waxaa lagu xisaaminayaa inay tahay mid dhar la oo aakhira waa loo ciqaabayaa dhar la-aanteedaas waa ay noqon kartaa oo wax dhar u egay wadataa laakiin xijaabku maaragtay shuruudo leeyahay ilaa 6 shardi ah oo ay kamid tahay maaragtay inuu jirka dhan asturayo inuu maaragtay uu yahay fadfaad mid aan jirka sawiraynin oo aan ku dhaganayno maaragtay firaaqa maaragtay jirka dhexdiisa uu ku leeyahay in maaragtay libaas shuhra uusan ahayn inuusan u ekayn ragga maaragtay dharkiisa inuusan ahayn labis gaalada u khaas ah waxyaabahaas oo dhan culimadu ilaa 6 shardi ayay maaragtay ku sheegaan. faruba kaasiyatin mid maaragtay dhar mid qabta fara badana fi dunya adduunyada caariya macnaha labaadna waxa weeye mid dhar qurxoon oo diin inay leedahay loo maleynayo adduunka laakiin ikhlaaskii waxaas ka marano aakhira ka dhar la diinta way fara badan tahay sidaas oo kale way maaragtay. baabu samari fi ilmi ilmiga in lagu sheekaysto habeenkii oo xadiis ayaa jira fi sahih muslim rasuulku sallallahu alayhi wasallam uu reebayo in dadku sheekaystaan bacda al-ishaa marka bacda al-ishaa qofku inuu dhikri iyo duco iyo maaragtay hadalka u dambeeya uu noqdo adciyadaas iyo adkaartaas ayaa la rabaa laana waxa laga yaabaa qofku markuu seexdo in naftiisu ay socoto in la sii daayana waa macquul marka haddii ay naftiisu socoto in hadalka u dambeeya dhikri iyo khayr uu ahaa laana rasuulka wuxuu leeyahay yubcathu al-mar'u bima maata calayh marka isagoo ama qof xamanaya ama xumaan qowlka u dambeeyay
ayaa maaragtay ayaa loo diidayaa markaas. laakiin haddii wax khayr ah maslaxa iyo cilmi iyo wax wanaagsan wax dhibaataa ma laha wey markaas. marka habeenkii in xataa samarka waxaa leeyahay sheekada habeenkii bacda alcishaa la sheekaysto iyo kaftanka oo waxa wanaagsan lagu sheekaysto. عن عبد الله بن عمر وحال قوري رضي الله عنهما لا كرهدون رضي قال وحويري صلى بنا رسول الله إلى رسولك سيان ندجي العشاء عشه في آخر حياته نولوشي سمرك أي قدام بيس مركي سمعسي قدام بيس يعني بالأيوم النولايا اللي مركو حديثك رسولك الشريك بعدي في آخر حياته نولوشي مركي قدام بيسي أيو رسول صلى الله عليه وسلم صلاة عشاء ندجي فلما سلم مركو سلاما نقصدي قام استاغي فقال حويري أرأيتكم ليلتكم هذه أرأيتكم واحد كورهنتين ليلتكم هبينكنا هذه اتنع هبينكنا كنا مارتي كورما محاد معناها ور ليدهن ساسوكل فإن رأس 100 سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد. فإن رأس 100 سنة بقول سنة مدحيدة ومنها هبين كان لقب اللابو إلى بقول سنة لقب قاريو لا يبقى هرميو ممن هو ضد هو يسوق على ظهر الأرض الدنيا دوشي ده سارا أحد روحنا ضدك الدنيا حد دوشي ده سارا بقول سنة مركي دماتو عيدك هريسة مجرد هذا مركز وحي نولاي وحي كبعد الشيء معها مالن كاس وحا نول هبين كاس وحا نول وممن هو على ظهر الأرض وي واحد الدنيا دوشي ده سارا وبن آدم كمركا نول markii 100 sano ay marka hadda caawa ka soo wareegto idina ka harimayso waa dhimanayaan dhamaanta sidaas oo kale marka dadkii waqtigaas rasuulka nooga sallallahu alayhi wasallam cid ka haraysa ma jirto 100 sano ka bacdi yani 100 sano wixii ka horeeyay waa dabar go'ayaan waxaad ogtihiin saxaabada waxa u dambeeyay nin la dhihi jiray Abu Tufayl Amir ibn Sa'ilah al-Laythi 110 يوم دhinta markii hijrada rasuulka ahayd rasuulkuna markaas uu hadlayo waa 10 sanadkii 11aad la galay sidaas oo kale sanadkii 11aad oo hijriga ayaa la galay marka waxa weeye markaas 99 sano ka bacdi rasuulka ayuu ku dhamaaday marka siga u dambeeyay yani Anas ibn Malik wax yar ka horeeyay oo maaragtay Kuufa iyo Basra iyo halkaas joogay isagaana ugu dambeeyay marka ninka waxa leeyahay Abu Tufayl Amir ibn Sa'ilah al-Laythi ninkaas u dambeeyay marka isaguna 110 markii hijriyadu ahayd ayuu maaragtay rasuulku uu dhintay markaas marka xadiiskan waxa laga qaadanayaa ay culimadu yiraahdeen dadkii yiraahda khadira hadda nool ayuu diidaya يعني إنه سنخدر نورين لأنه حتى كسوق هذا رسولك وقت يصير نوراي واحد دنيا هذا الجوجو نول بقول سنة كبعد نوران ما يجينا رسولك تاس مركب واضح هدو نولي هنا رسولك والله كل من هاي وما دام النبي وهاسيد الراجحة هاسيد عسوق لا مركب صحابة يضبع وحي أفهمين حديث كان إنه هاي بقول سنة كبعد أدونك ورمان يسار مركز waxay dhihi jireen adduunki waxa ka haray 10 sano 5 sano kada laakiin ma aysan hayn sidaas marka intaas ka bacdina maartay dhowr kun iyo xogaa sano 1400 iyo dheeraadan hadda marayna marka sidaas oo kale maartay araytakum waxaad ka warantiin leylatukum hadii habeenkiinan fa inna ra'sa 100 sana 100 sano oo minha habeenkan laga bilaabo la yabqa ka harimaya mimman huwa ala ظهر الارض dadka dunida dusheeda jooga أحد العيد كهرم يسوي معه. مركا علمي يالغو كفتمي والله يسوي شيء ما عرف يسوي معه. وما جعلنا لبشر
من قبلك الخلد أفإن مات فهم الخالدون. أيضا سنوي الشيء سامانت إن عندنا وارثان لو قرن marka waxyaabahan khuraafaadka oo khadra xalay yimid waxa soo waxba kama jiraan way ma عن ابن عباس وحلا رضي الله عنهما الله كرادنا قال حوري بيت وحنا بريي في بيت خالتي حوريرتي شبان كيف في بيت خالتي حوريرتي غريده دفيل ابن عامر ابن سائلة الليثي يا بيت وحان بريي في بيت خالتي حوريرتي غريده ميمونة بنت الحارث هي عبد الله بن عباس هو يدي وحال الجريه جري اللبابة بنت حارث حوريرتي سأو الرسول قبينا وحال يرهدا ميمونة بنت الحارث سيدو كلا وحي المهبرات هايان خالد بن وليد زوج النبي صلى الله عليه وسلم الرسول كما رتحاسكي ساهيك قرقيد أيام بريي بيت وحن بريي يعني هبينك ما بيتك وحال يا مركا هبينك المارك اللي تشوفتي بيت وحن بريي في بيت خالتي حوريرتي قرقيده ميمونة بنت الحارث هاد زوج النبي رسولك حاسكي ساهد وكان النبي صلى الله عليه وسلم رسولك نوحوها عندها أكتدا في ليلتها هبينك أي قيبته لهد ويمارك ورسولك حاسسكي ساه معناها قسم ماذا سيكون سعجران إلا سودة بنت زماهن وأيضا مارت قيبتي دي عائشة وهي بيدي مويان marka habeenkii iyadu ay qaybta u lahayd ayaan maaragtay rasuul la jooga habaryartii gurigeeda la bariyay oo aabihiis Abbaas ayaa wuxuu ku yiri rasuulka u tago ninka waan cilmiga lagu soo barbaariyay iyo dadka ahlu khayrka iyo nabiga iyo inuu ka qaato marka u tago bal guriga soo arag uu yiri waxa lagu sameeyay habeenkii iyo cilmiga soo qaado فصلى النبي صلى الله عليه وسلم رسولك حدك العشاء عشية يدكدي ومسجدك كسو دكدي وهي ثم انت جاء ويمد رسولك إلى منزله قرقس أيمد فصلى ودكدي 4 ركعات أفرق عدد أيدكدي ثم انت نام وسحدي ثم انت قام واستاغي ثم انت مركو استاغي وصوكعي قال وحيري نام الغليم يعني ويلك يرى وسحدي يعني تصغير غليم يروي معناها ويلك يرى وسحدي ومارت أو كلمة أما أري أيو يري تشبهها إرجاس مارت تشبهي سو مارت لمدح يعني مركو صلاة الليل قف قصو كعو إنه فامل كيس يعدو كجارو إنه كعيو تفقده ويديو ثم أنت قام واستاغي ومركا واللي كعيوي مركا الهلكا كجرته ما دام إسقي أولده كنيه عبد الله بن عباس ولا كعي ثم أنت قام رسولك استاغي فقمت وحان استاغي عن يساري بذحريسه ويعني وحوانين الإسكات لليرا وما ركتي عن علمي بدن لهين ويه مركا لبقف مركا يدكنيان ولا بكلي يهين إن قفك مأمومك أو إنه مديكتك استاغي أو نلسن أيه مركا دانك بيحوك استاغي فجعلني رسولك وحو إيالي عن يمينه مديكتي سو يسوريتي والرسول قعنتانو انتصار uga qabtay oo dhankaas ka soo qabto saas u soo wareejiyay markaas halkan keen marka qaabkaas uu sameeyay xadiis kala sharxaysa faj'alani wuxuu yeelay an yamiinihi midigta xageedu ii soo wareejiyay way marag marka waxa laga qaadanay salaada dhexdeeda in wixii lagu saxayo la sameey karo hadii midna meesha ka horeydo banaanaato inaad dhaqaaq sameey kartid hadaad qof maarad horay u taagan aragtido safka ka horeeya inaad toosi kartid هذه صلاة الحديث كجرت مارك لمصلحة الصلاة ويمارك فصلى 5 ركعات شنبو دكدي marka waxa laga qaadanay salaatu leeyl ka in la kala gogoy karo habeenkii intaad qayb ka dukatid hadana qaybta labaad qayb aad ka dukatid marka kale soo kacdid فصلى 5 ركعات 5 ركعات ayuu dukaday ثم inta dabadeed صلى ركعتين 2 ركعات ayuu dukaday marka labadan ragcadood waxa ay ku fasirayaan culimadu ragcatay al-fajr inay yihiin marka 9 hore iyo ragcatay al-fajr 12 marka 12 oo ay ku jirto salaatul fajrki ayuu dukaday ayaa riwaayadan hadda sheegaysa riwaayadka kalena waxay sheegayaan in 12 kaas ay ku jirin
صلاة فجر في سيدة سوكلة مارت ركعتين وسنة ثم أنت دبنا نام لكن صلاة الليل كوي طبعا هلا أنا أوير يعني وسيدة سوكلة وعبد الله بن عباس واكي ده هي ماركتي وحو أركي معاوية وهل ركعات كذي كلي هل ركعة وترود كذي ها مركز يري لو يديو كورنا ليري مركز يري وإنه فقيه وإنه حجرنا يري ها وأجي يري هل كعبينك جودي سياسة كلا فقيه ويري ها مركز من أراد أن يوتر بواحدة فليوتر مارت بثلاثة فليوتر بخمس فليوتر بسبع فليوتر بتسع ب11 سياسة كلا مركز وأكمل كواية كوي طبعا لكن هل شيء يسن علماء كهلانا واحد هان قفكم إنه سدح ركعات مركل كلية لازمه ما في عنه لأنه وحى في عن هدي حتى المال العريري تهي إن سدح إسكت دكتو لكن إن مرمرك قاركود هدي يجي كل قنتي كوي طبانك سجالك تضبطي أدمارة لكن إن هل متكلية لازمتي يعني هدي يجي رسولك يعني مركز نوعا ما هل شيء وكمية كلية هتقبضت مركز واحد في عن إن عاد سميسيد سيدي هدي ورسولك غالب كيسو هاي إنه كبدي إيه مركز إن هذا لازمين ومركز غير كود أتكبدي سيد ثم أنت من نام رسولك ما رتبوس يحدي حتى سمعت إلى أن كم الله غطيده يعني خورديسه أو أمسه خطيطه أو ماشي غينك أهلجين خطيطه معناها قردي وي نخير نوالي هذا ومعناها قرد آد مركي يصيبها توي مر ثم أنت أدبيد خرج إلى الصلاة صلاة دي أي مارتي رسولك مارتي أبحي ومركي ودكذا فجر كحوغا وحير إنه مارتي النصط وسحر وساس وكليه marka waxa laga qaadanayaa السمر في العلم rasuulka maaragtay inuu cilmiga maaragtay habeenkii iyadoo ay tahay Abdullah ibn Abbas uu la sheekaystay uu yiri xaguu tagay uu waxyaabihii maaragtay ka qaldamay uu maaragtay u saxay marka waxa soo dhan ayaa meesha maaragtay laga qaadanaya oo macnaha hadii waxa habeenkii lagu soo jeedayo ama lagu sheekaysanayo ay cilmi khayr tahay لا بأس به سياسة كلا وضع باب حفظ العلم علمي حفظينتيس علمي مارت إن الحفظيه ومارت الود ذال واللي سكب جيسن لكن الحفظيه لأنه حفظه أنبا وحكو حسلان حفظه أي مارت علمه وحكو النقضة مارت عن أبي هريرة وحال لقوريي عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال وحير إن الناس ذاتك يقولون وحليهن أكثر أبو هريرة وحديث بديي وحبضنا الرسول كشيء إليهن ولي بأرنتها سنة حد يأد أسيب بدنتهاي ونمن مستشرقين وقال وإنكار قبو عربي وحوى البحكو قرأ أيا أدي أدو دبقى لأبو هريرة وحليهن سيسور دقلو تهاي حديبي وصو إسلامي رسولك مارتي أفر سنة لجوغي شان كن انتهى حديث رجي مارتي سابقين تهي أبو بكر رجع سودنا مارتي دور بقول سيسور تقالوا تهي سيدا سوكل أي مارتي رحمة مركز يقول ولولا آياتاني هدي أي سنجري لهين لبا آيادات وفي كتاب الله إلهي كتاب كيسا كسوغان ما حدثت كما وربين حديث يعني لبداس آيادود ayaa waxay u kalifaysaa inaan cilmiga faafiyo wax allaali waxa rasuulka maqlay aan sheego maane idima warrabeeno waan iska dhaafi lahay ثم يتلو أخري إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك يتوب عليهم وأنا التواب الرحيم مركز كلا لباس أيود ولا لبا أيود اسكو حيران لباس أيود وما يعني كوا قرينية
waxa ilaahay soo dejiyey oo caddayn iyo hanuun camal saalix ah iyo cilmi ah kuwa caddaynaya kuwa qarinaya waxa ilaahay soo dejiyey oo caddayn iyo hanuun ah caddaynta hadda waxaa laga wadaa cilmiga saxiixa ah hadyigana waxaa laga wadaa camalka saalixa ah labadaasa macnaha horumarka iyo wanaagga iyo maaragtay diinta toosnaanteedu labadaasay ku xasishaa marka waa la lacnaday ali kuwa cilmiga qarinaya ilaahay baa lacnaday kuwa wax lacnado dhanna way lacnadeen haddaan aayadaasu jirin xadiis bay idima sheegeen taas ugu kalifaysa in xadiista aan rasuulka maqlabay marka sababka aniga la ii tuhmayo oo la leeyahay xadiiskan faraha badan xaguu ka keenayna dhowr arrimood ayaa aniga isaaciday oo leeyahay midda koobaad waxa weeye anigu cilmigan u go'ay wuxuu yiri inna ikhwanana walalahan oo min al muhaajiriinta ah kaana yashghuluhum waxa mashquuli jiray as-safaq bil aswaq as-safq bil aswaq suuqa gorgoradiisa safqiga waxa la yiraahdaa markii wax la kala gadanayo gacanta la isu dhiibo gacmaha isdhaafsiga iyo wax kala gadashada iyo beeca iyo waxaas muhaajiriintu ku fiicnaayeen marka ragga maaragtay Umar ibn Khattab iyo muhaajiriintii Makka ka yimid waxay aad ugu mashquuleen oo yiri iyagoo cilmigiina baranayay gorgoradii maaragtay suuqa wa inna ikhwanana walalahan oo min al-ansari ansarti Madiina loogu yimid ahna kana yashghuluhum iyaga waxa mashquulinayay al-amalu inay ka shaqeeyaan fi amwalihim yani fi aradihim iyo fi ziraa'a xadiisa kala fasiris ayaguna beerley ahayano beertaas waraabinteedii jarideedii hagaajinteedii maaragtay miraha soo hagaajinteedii ka ilaalinta bahlihii waxaas iyaguna ku mashquuleen wa inna aba hurayrana kana yalzamu rasuulullah ilaahi rasuulkiisa ayuu joogto u laazimi jirayo oo markii la arkay joogay li shiba'i batnihi calooshiisa dheregteeda unbu kula joogayo yani isagu hadduu rasuulka markuu u yimaado maaragtay dadkaas ahlu khayrka sadaqaadkaas ay keenaan iyo rasuulku waxa uu siiyo calooshiisa hadduu ku shubto cilmigu marka halkaas ka qaadan jiray uu laazimay sidaas uu ahay oo isagu rasuulkana waa laazimay waliba wayahduru wuxuu joogi jiray ma la yahduruna xaalaad iyo kaysas iyo marmar aysan joogin ayaan wayahduru labaduba waa isla socdaan ta horeysa wayahduru waxa uu goobjoog ka ahaan jiray ma la yahdurun meela aysan iyagu goobjoog ka ahayn ayaan anigu goobjoog ka ahay xaalaad iyo arrimo dhacay ama waqaa'ic dhacday oo iyagu goobjoog aysan ka ahayn anigu goobjoog ka ahay oo yiri wayahfadu waxaan xifdi jiray ma la yahfadun wax aysan xifdi jirin ayaan anigu xifdi jiray marka 4 sano oo full time oo wax u baranayay 20 iyo maaragtay 3 sano oo maaragtay part time ayay ka khatarasanaatay marka rag rasuulka lahaatay 3 sano la joogay ninkaan 4 sano joogtay ula joogay ayaa ka maaragtay cilmi iyo xifdi batay arrimo kala ula jiro noo soo socda in rasuulku u duceeyay iyo arrimahaas oo dhan maaragtay marka cilmiga waxa la yiraahdaa waa الاستماع ثم الإنصات ثم الحفظ ثم العمل ثم النشر شنتاس استماع وحواي إناد قوبتي ستي مادت مركا قوبتي ستي مادنا إناد ودك رارع السيدو عاد جيستت دبدينا وحي للشجاي عاد حفظدت دبدينا عاد كعمل فشيت دبدينا عادتك وقدس marka inta sameysida cilmigaadu oo mubaarak noqon kara mid maaragtay adiguna ku anfaca dadkiina maaragtay anfaca laakiin hada meeshii timaad aadan imaanba ama aad timaadee aadan si fiican u dhuuxin ama aad timaado oo aad dhageysatay laakiin aadan waxba ka xifdin ama aadan ku amal falin ama aadan dadka u gudbin intaas oo dhanba marka cilmigii waa qiimo tiraysaa way marka marka ujeedadu waxa weeye marka waxa laga qaadanaya xadiiska in cilmiga oo la laazimo oo waqti gooniya la siiyo inuu xifdiga qayb weyn ka qaato
cilmiga qayb weyn ka qaato waxaa kaloo laga qaadanayaa maaragtay qofka oo maaragtay nafaqaadkii ku waajibka ahay iyo adduunyadiisii u shaqaysigiisii inaysan ceeb lahayn leanno saxaabada raggii u fadliga badnaay oo isaga ka qadimsanaay ayaa qaarkood shaqadaas ku jireen cumar ibn khataab oo kale beecaas ku jiray sidaas oo kale cabdiraxmaan ibnu cawf isaguna tujaarta waaweyn u ahay oo dullani cala suuq waa nin ku yiri nin baa yiri maalka iyo waxa dhan waa kula qaybsana markaasuu yiri waxba haysiinina laakiin anu ganacsiga aqaana suuqa itusuy ka bacdina wuxuu noqday min mashaahir tujaar almuslimiin mashaahir tujaarta muslimiin dadka ugu caansan oo waaweyn u noqday marka taasna inaysan wax dhibaato lahayn waliba hadduu qofku ku anfacayo dadka ay aad iyo aad u si khayr badan tahay maarka laakiin halka waxaa laga qaadanayaa qofku wuxuu cilmiga ka jiba gaari karaa ama uu meel fiican ka gaari karaa markuu waqti siiyo u gooni ah taas aaday muhiim u tahay maarka 2 sano ha noqoto 1 sano xataa ha noqoto oo aad maaragtay full time aad maaragtay baranaysid kaliya oo aan shawaaqil kale iyo shaqooyin kale iyo hadallo kale kugu furnayn waa muhiim marka arrintaas marka xereysiga ayay arrintaanu ay aad iyo aad u adkeynaysaa way maaragtay لأنه قفك علمي وباهن يهي environment aad maaragtay quiet u ah iyo qofka maskaxdiisa joogta iyo qalbigiisa uu xas wada siiyo laakiin qalbigaadi haduu meel fara badan ay ku dhagan yihiin waa wixii waa kala tifraarayaan markaas وعنه أبو هريرة وحلوي رضي الله عنه الله كرضنا قال وحيري قلت وحن يا رسول الله إليه رسول كسيو إني أنه أسمع منك وحن كامغلا حديثا كثيرا حديث آدي فربضا أنساه وليب عنه المامي حديث فربضا كامغلا وأنا المامي marka isaguna hadiista inuu san helmaamin oo aad ugu dadaali jiray waa anagii soo marnay rasuulku waa ki dhahayay dhanantu inaan cid kale hortaa xadiidka weydiineen ayaan marin min xirsika ala alhadith yani ma lima ra'aytu min xirsika ala alhadith waxa aan arkayo inaa xadiid ku dalays daladeed ah marka aad iyo aad ugu dadaali jiray inuu san helmaamin inuu xifdiyo xadiiska rasuulkuna waa badan tahay marka xadiis fara badan aan ka maqlayaa waan helmaamaya qaala rasuulku wuxuu yiri أبسط فيدي رداءك قوع فيدي فبسطته وان فيدي قوعي فغرف بيديه لبدا قعمود أيو كسو قادي ساسو رسول كيري مركاس أورشبه ثم انت الدبدي قالوا حويري ضمه مرض هذا أرورسو وسيدي طريقة أما ماركتي جوان سيدا سوكالي ساس جيسا وقال ساسو قادو فضممته مركاسان أروريي ومردي أيان مارتي أروريي مركا فما نسيت مهل ما من شيئا شيء بعده مالك كبعد مركاس كبعدي والرسول في دعاء إيسيي ما أنا نهل ما منه جماعة مركا نين كان وحا إسولجر أفر سنة لازمي يسوي كل حفظ لهاي مارتي رسولك أدعي مركا كبعدي وحا ما أنا نهل ما منه واحد تسان حي فبصدي رداك قعد مارتي فيدي فبسطته قوي أيان مارتي فيديي فغرف بيديه لبديس قعمود أيو مارتي رسول قاضي قعم بيه وكسو قاضي غرفته وحاليا مركز بيها يقاضي صعب بحسي ثم قال وحيري ضمه قوى مارتي اسكو أرورسو فضممته وان أروريي فما نسيت ما أنا الهلما من شيء بعده مركاك بعد ما أنا الهلما من وعنه وحال رضي الله عنه الله كراد من نقضيه أبو هريرة وباب كانوا دون أبو هريرة إسكاله جبي يسبع حفظ العلم سد حديث كذا أرتبا وأبو هريرة كليه مارك رضي الله عنه الله كراد من قال وحيري حفظت من النبي رسولك وحن كحفظي وعاءيني لبويل أو وين يعني وعاءيني من العلم يا لقوله لبويل أو وين وعلمي أيان مارت رسولك كحفظي فأما أحدهما متكمدة فبثثته وان فديي أو وان فافيي أو ضد كان مارت أقدبيي وأما الآخر ككلا فلو بثثته هادان ضدك أشيق لهاي وضدك أقدبي لهاي قضع هذا البلعوم هم قرقان والله جري لهاي هادان ككلا أنشيق لهاي هم قرقان وقوء لهاي متكمدة أنا وإذين شاقين مركا waxay culimadu ku fasireen weelka hore uu faafiyay waa weelkii ahkaamtii iyo akhlaaqdii iyo fiqigii iyo ku saabsanay
weelka labaadna waxaa waaye rasuulku arrimaha uu ka warramay oo maaragtay dhibaatooyinka gadaashiisa mixanta iyo fidnooyinka iyo fasaadka dhici doona uu ka sheekeeyey markaa waa ka tawraysanayaa oo maadaama waqtigaas waxaa la joogaa isaga aakhirkii marka wuxuu dhintay 59 uu dhintay hijriyadu markay ahayd markaas marka Muawiya haystay marka waxaa soo socda marka wiilkiisa Yaziida oo xogaa maaragtay arrimo fara badan oo maaragtay Xuseen dilkiisa lagu eedeeyo kabacdina ay ka sii dambeysay Abdullah ibn Zubayr iyo fidnooyinkii faraha badnaay iyo saxaabada Xijaaj iyo dilkoodii waxaas oo dhan ka dambeysay marka arrimaha haddaan idiin sheego uu yiri hadda hungurigaad maaragtay jari lahayd marka xataa waxyaabaha ku ducaysan jiray waxaa kamid ah a'uudu bika wuxuu dhihi jiray min ra'si 60 lixdanka gaarideeda ayaan ilaahu ka magan galay lixdanku waa markuu Yaziid qabsanay moogta wuxuu yiri wa imaarati sibyaan iyo ilmaha yar markay madax noqonayaan marka dhibaatooyinkaas ayaan ka magan galay yira marka cilmigan dambe uu sheegayo oo uu qariyay waa midkaas marka meeshan waxa laga qaadanayaa in maaragtay hadda sheegidiisana xigmad weyn oo ku jirtana ma jirto de fasaad fara badan iyo in dadkii madaxda ahaayna ay dadkii dhibaateeyaan way ka imaanay marka waa iska xiriyo baabkiisa حفظت من النبي رسول الله وحن كيف دي وعاءين لبا ويل أو علمي هن كيف دي فأما أحدهما مثل كمذا فبثثته وانفافيي وان شيغي وأما الآخر ككلنا فلو بثثته هدان كاس فافين لهاي وشيغي لهاي قدع هذا البلعوم هنقرقان ولا جري لهاي أسعون لهاي مركوا مثل كسابسان في تنتا يمحنتا سوك كذا شيء سدايس باب الإنصات للعلماء الإنصات لجيسي للعلماء علماء مارتي اللي لجيسته oo cilmi qof intuu marjilis iska yimaado uusan qof iska maqan ahayn inuu dhageysto dhuuxa way maaragtay marka waa anagii niri waa afar waa shan al-istimaac waa meesha imaashadeeda insaat dhageysiga xifdi in la xifdiyo dabeedna waxa ku jira amal cilmigii aad xifdiday inaad ku amal fashid dabeedna waxa ku xidha an-nashr wal bath min al-sifili sidii maaragtay أن النبي صلى الله عن جرير بن عبد الله وحال وريي البجلي رضي الله عنه ذاتي مركي ودمي إسلامي أيوها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له وحكير جرير بن عبد الله في حجة الوداع سقوتين تحجكي وحكي رسولك وحجكي رسولك سنة كي طمانات وحجيي ومارت السقوتين ذاتي وسقوتين يي على هل بلغت ودهيي سنة كاسوي مارت مركي رسولك وحكيري له لعبد الله بن جرير بن عبد الله وحكيري استنصت الناس ضدك أمسي يعني يطلب منك إنه ضدك أمسي ضدك أمسي معناها ضدك خطبة أنو شيء لهاي أيجينا وي مشغول سيين مركز ضدك أمسي يعني وجدت سوحوي ضدك وحد كضلبتا إن يدقيستان علمك أنو شيء سياسة كلام فقال وحي رسولك صلى الله عليه وسلم وحيابا فربضان ومالك أشيغي مركا وحيابا مهم سمحا كميدا رسولك وحيري لا ترجعوا ها أهانينا بعد أن يقداش إذا كفارا قالوا ها أهانينا يضرب وقراعي بعضكم قاركين رقاب بعض قارك كالغورتيس وقراعي مركا ترجعوا ذا علماء نحاض ملا قاركو وحي كدران من أخواتي كان هقول الله أبنينا ما أهانينا وي قداش إذا أهانينا لا تكونوا بعد كفارا وقليلا من تيدين حسناسو لا ترجعوها هاننا بعد أن يقداش إذا كفارا لأنه رجعوا ما قالت مفعولي وحاس مركا كفارا توحوي على أنه إني لم ينتهي مارتي لا تصيروا أي أقالت سلاسو كلا لا ترجعوها هاننا بعد أن يقداش إذا كفارا قالوا ويضربوا قراعي بعضكم قاركين رقاب بعض قارك كالقرهيس مركا كفارا تعالوا المدح يكون فسنا الله أما سد حريمات بوي نقون كرتا هدي ديجي قفك مسلم كاو كلا الحلاليستي هذا هو قال محض ويا سو معناها كلامه وحو نقون كرا يعني waxa weeye kufaaran ha ahaanino qofka gaalka ayaa shacnigiisu wuxuu yahay inuu muuminka dilo marka shacniga qof kale oo muumin ah gaal sidiisi inuu sameeyo ma ahan wasidoodii ha noqonayna sida gaalado kale
ومسلمين تدلي هنقولنا أما وحال لقوا كفر دون كفر وما رأيتي كفر قدم بيضو دن سيدا أن أشياء ونيري إيمانك شعب ليه كفر وانا شعب ليه وحكستو ذنبيه ومعصيه وكفر مركا كفر قاسا أكبر يوحوك لبحاه يو كفر دون كفر مركا ujeedadu waxa way cilmiga markii la akhrinayo inaad dadku buuqin in maaragtay la dhageysto qofka caalimku wuxuu sheegayo si maaragtay looga faa'iido sidaas oo kale ixtiraamna ay ugu noqoto culimada ruuxadooda baabu ma yustahabbu lil aalim waxa loo sunneeyo caalimka ida su'ila hadii la weydiiyo ayu naasi a'lam dadka ya u cilmi badan hadii la weydiiyo maxaa loo sunneeyaa riwaayaadka kale ayaa sheegayso أن يكل العلم إلى الله إنه علمي الله أطلع صارتو يراهد إلهي با ما ركتي أك عيد وعلمي بقى هذا سياسو كل هدي عالم كله ويدينه سندهن أنا علمي بقى ضدك إنه علمي إلهي أطلع صارتو يراهد أرنتاز ضدك عيد ضدك وعلمي بقى إلهي با أك إنه يراهد سياسو كل إنه يراهد هو رواية سياس ما ركتي شيء جيس ما يستحب كتابك أصل كان وكحل يا رنتاس ما يستحب وحل السنية اللي جعل يستوى للعالم عالمك إذا سئل هدي لويديو أي الناس أعلم ذاتك يا علم بدل مركي لويديو محا لقربا قفك إمامك عالمك محا لقربا إنه علمك الله أطلع سارتو يراهدو إلهي با قرن إيه ذاتك عدة علمك بدل ويمارت عن أبي بن كعب وحلو رضي الله عنه ألا كراد النقضة عن النبي صلى الله عليه وسلم النبي وحكوري قال وحيري مركا حديث كان دير لبن ميلود أيو كتاب كوين البخاري كسو أروريي في كتاب العلم مالك كان كسو أروريي سيدة كتاب التفسير وكلا لكن لبن ميلود لبن عوان أسمي حديث كان وحديث كخضر يكهلا موسى مركا لبن عوان ويهاي ولبن ميلود كجرتو كسوقات ومثلا ميد وحليه يعدي قفك لويديو dadka yaa cilmi badan inuusan dhihin ana a'lam aniga uu cilmi badan uusan dhihin uu yiraahdo ilaahay ayaa garanaya an yarudda al-ilma ila Allah Allah cilmiga inuu Allah u celiyo taas waa meel talabaadna isla Bukhari wuxuu u soo qaatay xadiidkan in badda loo koro oo loo rarto oo dhibaato loo maro ila dalab al-ilm laana nabi Muuse markii la yiri cid ka cilmi badan ay joogta هذه هالكاس سؤال مركا لبداس وكتابك وبابيستي لكن هذا ما دام كتاب كان مختصر ياهي هل بابو كسوقاتي لبدينا waa ay ku dhex jiraan cilmigiyo loo rartay iyo arintii ahayd ma dadka ana cilmiga badan oo lagu celiyo la yiri waxay ahayd inaad cilmiga alla u celisid marka way ana ubay ibn ka'b waxa lagu radiyallahu anhu alla karaadun wade marka qisadana waxay ku timid ma aragtay Abdullah ibn Abbas iyo nin kala waxay isku qabsadeen عبد الله بن عباس وحو يري خضرك لغا هادلay quraanka waa khadirkii Muuse laga hadlay quraanka oo khadir la kulmayo waa Muusihii maaragtay reer bani Israa'iil ninka kalena wuxuu yiri Muuse ibn Misha nin la yiraahdo kala weeyo ma ahan sidaas oo kale marka aad bay arinta ugu doodeen waliba laba nin bay isku qabsadeen nin Hurr ibn Qays la yiraahdo iyo nin kale labadiiba marka labada riwaayo ku kala sheegaya markaas arintii waxa la weydiiyay Ubay ibn Ka'b marka Ubay ibn Ka'b ayaa kala saaray oo yiri ninkan laga hadlay waa sida Abdullah ibn Abbas sheegay waa Muusihii reer bani Israa'iil ee Muuse kala maahan qadir ninkan la kulmay marka sidaas uu ku kala saaray عن أبي بن كعب وحال لغو رضي الله عنه الله كرضي عن النبي وكوري قال إنه يري أبي قام وحا استاغي موسى النبي موسى أي استاغي النبي أحد موسى بن عمران أي مارت استاغي النبي أحد خطيبا استاغي خطبة أخرينية في بني إسرائيل غير بني إسرائيل فسئل وحا لويدي أي الناس أعلم ذاتك يا أقنرون فقال وحيري أنا أعلم أنا ذاتك أقنرون سيدا سوير فبعث الله عليه إلهي فعتب الله عليه الله أرنتا كو عنانتي يعني الله أرنتا كو عنانتيو قول كيس لغا مر هذا النقدان إذ محايا لي لم يرد العلم علمي ومعلن إلى الله الله ومعلن
waxay ahayd inuu yidhaahdo yaa dadka u cilmi badan markii la weydiiyo ilaahay baa garanaya cidda dadka u cilmiga badan laakiin inuu cilmiga o dhan isaga isku soo koobo arrintaasaa maaragtay lagu canaantay facataba allahu calayhi ilaahay baa arrintaa ku canaantay id lam yarudda alcilma ila allahi maxaa yeelay cilmiga alla uma celin fawxa allahu ilayhi ilaahay baa u waxyooday oo wuxuu yidhi ana cabdan adoon oo min cibaadii addoommadeeda ka mid a bimajmaci albaxrayni labada badood meeshay ku kulmaan jooga huwa kaas baa aclamu minka adiga kaa aqoon ro addoon addoommadeeda ka mid a oo meeshaa majmacu albaxrayn jooga labada badood meeshay ku kulmaan ninkaasa kaa cilmi roon marka mu'arikiinta war badan ay halkaa ka sheegaan laakiin waxaa ugu saxsan majmacu albaxraynkaas in laga wado meeshaas suways qanaadkaas uu ku yaallo marka meeshaasaa ugu badan inay halkaa tahay leannahu waana meeshii reer banu israa'iil iyo masar iyo wixii dhammaa u ahay accessko marka halkaas wey aan asagana aad markaa uga fogeyn faqaala wuxuu yidhi yaa rab rabbigay wa kayfa bihi sidee baa ninkaa lagu gaari karaa wey maaragta kayfa alwusuulu bih kayfa ninkaaseen ku heli karaa oo aan ku gaari karaa faqiila lahu waxaa lagu yidhi axmil xuutan waxaad qaadataa kalluun qaado fii miktalin waxaad ku qaadataa dembiil kalluun dembiil ku qaado zambiil sidaas oo kale meelaha qaarad ku arkeen xataa kaana ilaa ay ka fa idaa faqadtahu haddii aad weysid kalluunkii fa huwa ninkaas aad doonaysid oo addoonkaas aan kuu sheegayo tama halkaasuu joogaa wey marka halkaasuu joogaa markaad kalluunkii aad weysid halkaasuu joogaa marka xitaa macnaha waxaa riwaayooyinka qaarkood ku soo aroortay kalluunkaanu inuu iska ahay xitaa kalluun la bisleeyo o la iska cunayaba oo ku jiray maaragtay bahalkaa migtalka ama zambiilkaa ku jiray marka kalluunkii la bisleeyo o la iska cunayo hadba maalin lagu quraacanayo o lagu cashaynayay ayaa kalluunkii rasmiga ahay intuu noqday ayuu kabacdi meeshii ka sidbaday uu maaragtay badda ku dhacay markii waa wax mucjiza ijaaz min allahi ah faاnطalaqa wuu tegey waاnطalaqa bifataahu wiilkiisii ilaahay kurayga ahayna oo u adeegi jirana wuu la tegey yuushac ibnu nuun ahaa marka yuushac ibnu nuunna waa nin caan ah uu noqday markii dambe oo xataa risaaladii maaragtay towreed ahayd iyo kitaabkii iyo nebi muuse ka wakiil noqoshadiisii wixii dhamaa mas-uuliyaddii la wareegay marka laakiin waa nin dhan yaroo lagu soo barbaariyey risaalada iyo cilmigii waxaas oo nebiga maaragtay la socday waxamalaa waxay qaateen xuutan malay ayay qaateen fii miktalin waxay ku qaateen dembiil bay ku qaateen xataa kaanaa ilaa ay ka ahaadaan cinda asakrati yacni dhagax agtiisa ay ahaadaan wadaca way dejiyeen ru'uusahumaa madaxyadoodii fanaamaa way sexdeen yacni aad bay inta u daaleen ayay madaxoodii dhulka dhigeenoo ay sexdeen fansalla alxuutu kalluunkii ama malaygii wuu ka siibtay min almiktali dembiishii faاtakhada wuxuu yeeshay sabiilahu waddadiisa fi lbaxri baddi saraban maaragtay dariiq waddadiisii oo maaragtay baddi aheedow wuxuu ka yeeshay meel maxaa weeye yar oo biyuhu ay ka kala leexdeen oo asiga uu sidaa ugu socday fa kaana waxaa u ahaaday limuusa muuse iyo wafataahu wiilkii la socday cajaban la yaabay arrinta ku noqotay yacni kalluun nooloo meesha kuugu jiray inuu dembiishii ka siibto dhibaato ma lahayn laakiin kalluunkii la cunayay oo biisiska ahay inuu maaragtay intay isku samaysmo hadda badda galo oo baddiina uu meel ka jeexdo taasa waxay noqotay wax la yaab le ku noqotay fandalaqa markay la yaabayaanna waa markay ogaanayaan laakiin markii hore meeshay seexdeen waa iska socdeen baalkiina meeshuu galay moogta faاndalaqa baqiyata laylatihima wa yowmihima faاndalaqa way socdeen baqiyata laylatihima habeenkeedii intii ka hadhay iyo wa yowmahuma
maalinkoodii intii ka hartay marka taqliibaa ku jira culimmadu leeyihiin waxaa horeeya yoomka habeenkaana dambeeya oo waxa weeye fandalaqa baqiyata yawmihima wa laylatihima habeenkii maalinkoodii intii ka hartay iyo habeenkii ku xigay intii ka hartayba way socdeen li'annahu falama asbaxada waxay keenaysaa maalin lagama waabariistee habeena laga waabaristaa markay waabaristeen macnaha habeenkii markay ka waabaristeen ama waxay noqon kartaa maalinkaas dambe habeenkii ku xigay markay ka waabaristeen qaala muusa lifatahu wiilkiisa wuxuu ku yidhi aatinaa waxaad noo keentaa khadaa'ana quraacdeenni noo keen ama maaragtay qadadeenni noo keen laqad laqiinaa waxaanu la kulannay min safarinaa safarkeenna haada oo kana nasaban daal safarkeenni dhib baan kala kulannay ee maaragtay noo keen qadadeenni marka meesha maxaad ka garanaysaa qadadii noo keen haddii laleeyahay fiishna la cunayo fiishki inuusan fiish uusan ahayn maaragtay weli nool oo maaragtay uu yahay mid biisiisoo diyaarsan falam yajid muusa ma uusan helin masan taabasho oo min annasab dhib ah xataa jaawaza almakaana aladii ilaa uu ka tallaabo almakaana booskii alladii booskaasu umira bihi la faray meeshii la yidhi ninku waa joogaa oo majmac albaxrayn ah markuu dhaafay unbuu daal dareemay intii horeo intii isaga loo sii socday lama dareemay fudayda iska ahayd laakiin markii isaga la dhaafay ayuu wuxuu dareemay nasab falam yajid muusa muuse muusan dareemin masan taabasho oo min annasab dhib ah yani dhib ma taaban xataa jaawaza almakaan ilaa uu booskii ka gudbo alladii booskaasu umira bihi la faray faqaala lahu fataahu wiilkiisi wuxuu ku yidhi wiilkii baa hadlay qadadii nookeenuu yidhi moogta markaas wuxuu yidhi ara'ayta waxaad ka warantaa id aweynaa ila sakhri markaan dhagaxa aan u dumannay fa innii nasiitu alxuuta waan hilmaamay maaragtay kalluunkii waan hilmaamay wamaa ansaanihu ila shaydaan shaydaan ubaa hilmaansiiyey qaala muusa wuxuu yidhi daalika arrinkaasu maa alladii kii weeye kunnaa aanu ahayn nabqii inaan doonayno arrintaas waa tii aan rabnay haddiiba kalluunka la waayey waa meeshaan ninka ka raadinayna halkaas wey maaragtay fartaddaa way laabteen calaa aahaarihimaa raadkoodii qasasan iyagoo maaragtay degdegaya oo maaragtay toos guri u laabanaya ayay raadkoodii ku laabteen falama intahayaa markay ku tageen oo ay gaareen ila sakrati dhagixii id rajulun yacni waxaa lagu soo kediyoy markiiba la kulmeen rajulun nin musajan maaragtay ku daboolan ama huwan bithawbin maro nin maro huwan oo maradu ay muqadi ku ah maradu ay dabooshay ayay la kulmeen aw qaala wuxuu yidhi id rajulun tasajaa bithawbihi nin maradiisi isku duuduubayo maradiisa huwan ayaa meeshiiba fadhiya yarxamuka allah fasallama muusa muuse wuu salaamay faqaala khadir wuxuu yidhi wa annay biardika asalaam kayfa macnaa xaggee bay uga ahaatay dhulkan nabadgelyo yacni wuxuu ka wadaa yani dhulkan dad salaamtaadaas islaamka yaqaana maba joogaanba macnaa dhulkaan nin salaamtaas dad ku salaama ma joogee dhul xaggeed salaamtaas ka keentay lagama yaqaano sidaas oo kale way maaragtay marka culummadu waxay leeyihiin sida noo soo socota kolley dib aan ka faafi doonaa khadir inuusan qeyb ogeyn ninkan inuu ku soo socdo iyo inuu maaragtay meesha sexday iyo inuu waxa uu yahay midna muusan ogeyn leanna waaba ka dhahayaba salaamtan xaggeed maaragtay ka keentay sidaas oo kale taasaa marka laga qaadanaya faqaala wuxuu yidhi ana muusa ayaan ahay faqaala wuxuu yidhi muusa bani israa'iil reer bani israa'iil muusihii loo soo diray miyaa tahay qaala wuxuu yidhi nacam qaala wuxuu yidhi hal attabicuka ma ku raacaa calaa an tucallimanii inaad ii bartid mimaa cullimta wixii lagu baray rushdan oo hanuun yacni hanuunkii lagu baray inaad ii bartid ma kuu raacaa u yidhi marka waxaa laga qaadanayaa qofka daalibulcilmigaa qaabka maaragtay uu hadlayo ibar iyo amar ma uusan siinin wuxuu yidhi ma ku raacaa uu yidhi inaad wax iga bartid waxa maaragtay lagu baray oo hanuun ah maaragtay
qaala wuxuu yidhi innaka adigu lan tastadiica ma awoodid macii aniga la jirkayga sabran inaad ku sabartid qofka daalib cilmiga marka culammadu waxay dhaheen xataa nin xoogaa iska dabeecad adag oo laakiin cilmi badan ka buuxo haddaad aragtid inaad maaragtay waxaa dhilisaad uga qaada lahayd xeelad iyo taftaada aad maaragtay ku sabartid marmarka qaarkood waa dhacaysaa maaragtay hadda isagu waxa weye nin cilmi lahoo oo waxyi ku socdow ahaayo waxyaabahan wax khalada ma aysan ahayn laakiin macnaha igulama sabri kartid uu yidhi moogta marka inay sabri u baahan tahay cilmiga qaadashadii ruuxadiisu innaka adigu lan tastadiica ma awoodid macay la jirkayga sabran inaad sabartidood cilmiga iga qaadatid oo ila joogtid ma awoodaysid yaa muusaa muusow innii anigu calaa cilmi dushiisa ayaan ahay oo min cilmillaahi ilaahay cilmigiisa ah callamaniihi alla uu i baray laa taclamuhu anta adigu aadan garanayn oodan adigu ogeyn wa anta adiguna calaa cilmin aqoon ayaa tahay oo callamakahu allahu ilaahay ku baray laa aclamuhu anugu aanan garanayn sidaas adiguna cilmi ilaahay anugu waxaan haystaa yidhi cilmi ilaahay i baray oo adigu aadan garanayn anna waxaan haystaa adna waxaad haysataa cilmi ilaahay ku baray oo anugu aanan garanayn marka waa iska sii hormarinaynaa culummadu sida ugu raajixsan waxaa weeye inuu nebi ahay saddex arrimoodaana ku tusinaya arrintan hadda calaa cilmin callamaniihi laa taclamuhu anta cilmi ilaahay i baray oo adigu aadan garanayn waxaa kaloo daliil u ah markuu qisooyinka dhan soo sheegay muxuu ku gebagabeeyey wamaa facaltuhu can amri arrintan aan sameeyey oo arrimaha igu soo arartay anigu arrin aniga xaggayga ka timid maahane waa arrin waxyiyo wey maarka number 3 aayadda bilaawgeedu maxay leedahay waxaa ku jira aayadaha bilaawgooda aataynaahu min ladunnaa cilman waxaan siinay xaggeenna cilmi marka kulli hadihi adila waadixa waaye calaa annahu nebi oo ilaahay xaggiisa wax ka helaa inuu yahay marka taasaa raajixa maaragtay waxyaabaha kale oo dadka kale u daliishadeenana waa ka hadli doonaa maaragtay waxa kaloo culummadu ay leeyihiin macnaheedu ma ahayn inuu ka fadli badnaa nebi muuse laakiin masaa-isha qaarkood oo uu uga cilmi badan yahay inay jirtay oo yacni mawaadiic khaasa ku saabsan oo isaga loo waxyooday laakiin nebi muuse inuu fadli badnaay laa shaka liannahu waxa weeye wuxuu ahay waa nebi ululcasmiga ka mid ah oo ilaahay maaragtay qur-aanka maaragtay uu ku sheegay ululcasmiga 5 ayuu ka mid yahay haddana qur-aanku maaragtay risaalaati iyo ilaahay uu toos ula hadlay risaalada la siiyey kitaabka weyn la siiyey la doortay arrimahaas oo dhan maaragtay uu leeyahay maaragtay marka dadku inay dhahaan khadira ka fadli badnaay yacni masalooyin uga cilmi badnaay oo laguna canaantay nebi muuse maadaama uu yidhi anaa dadku cilmiga badan lagu tusayey cilmiga ilaahay iyo weynankiisa qaala wuxuu yidhi satijidnii waxaad i heli doontaa in shaa allahu alla hadduu doono saabiran mid sabraya ina ahay walaa acsi laka amran arrintaadana ma caasinay daalib waxaan noqonayaa arday maaragtay sabraya oo cilmiga inuu qaato ku sabraya arrintaadana aan waxba kuga caasinaynin fainطalaqaa way socdeen yamshiyaana iyagoo soconaya calaa saaxiri اlbaxri badda maaragtay xeebteeda iyagoo ku soconaya ayay socdeen marka fainطalaqa ama marka qaarkood la isticmaalaa u fiirso waxa hadda ka dambeeya musanaa la isticmaalaa waa khadir iyo nebi muuse leannahu labadaas ayaa main ah yuushacna waa taabic oo mid ka mida u la socdaa marka sidaa daraaddeeda laba la isticmaalaya meelaha qaarkoodna waxaa la isticmaali doonaa jamac oo waxaa la leeyahay fakallamuuhum sidaas oo kale marka isagana markaasna waxaa lagu darayaa yuushacaa lagu darayaa way maaragta faindalaqaa way socdeen yamshiyaana iyagoo soconaya calaa saxri ilbaxri badda xeebteeda laysa lahumaa safiina iyagoon doon lahayn oo macnaha doonay raadinayeen ay badda ku galaan marka doon ma lahan famarad bihimaa waxaa soo martay safiinatu doon
فكلموهم ويلها لين أن يحملوهما إني حنباران فكلموا مركز قولدان إسلا سعودتي أيها وحيلها لين هم تذكي دونت إسكالها هاي أن يحملوهما إني لبدو ده حنباران يرك الله سعودوي مارك مركز لها لين بقى فعرف الخضر خضر بقى لقرتيو تذكي دونت إسكالها خضر بي بقرانيين فحملوهما ويحنبارين من غير نول ماركتي أجر الآن يوم واحد قال لك قادم Soomaalidu waa taqaanaa ninka nooli ma haysto gulay nooli marka nool waa sidaas oo kale wadaadadii waagii hore wax noo akhri jiray mid kamid ah wuxuu dhihi jiray shiiqayga hebelahay shiiqiisi kale wuxuu yiri maartay maadaama mustaqbalka uu ogaay gadan yaji'u markabun min ghayri nowl narkab qola meel uga tagtay kulaha markaas bari waxa imaanay markab min ghayri nowl narkab nool ilaanan korayna وهذه أدو نودي ده هذا مركز ذا سوق على بارك فجاء عصفور مركز واحد يمد عصفور أيا يمد شمبر أيا يمد يعني وشمبر كان عصفور واحد دهان حقا قرحون الداوس كي واحد سيد دهان وبيكوج عصفور قرح بدن ساس وكلا أيا يمد فوقع وحكود عي على حرف السفينة دون تقركيد أيوكو استاج حرف وقرك جو جيداس يكون استاج ومن الناس من يعبد الله على حرف ما هو جيس كده ساس على قولها مركل اللغة العربية حرف أصل كيس هو جيس على حرف السفينة يكون استاج فنقرأ ومدي نقرة مدي معناها أفك قرع قو أي أفك كسيي أو نقرتين لبق كوجراعد من البحر بدأ يسقط دونتي قركيد كو استاجتن أيو بدي قع أو أفك يركع كسي فقال الخضر وحيري يا موسى ما نقص علمي وعلمك من علم الله ما نقص مديميو علمي أنا علمي وعلمك علمي قادو من علم الله علمي يسكدمي ما يوم إلا كنقرة هذا العصفور إلا مار شمبر كاس جودة السماهنة في البحر بدأ وجوسي يعني بدأ جودة أوسي شمبر كوحمي كدبيسا سيدا يسون سيدا تاسو حقوق دبينين أيان علمي قاد مركي اللي يسكت دارنا ألا علمي يسون وحبا كدبينين ويمار هتا مركي علماء وحيكون فاسنا مثال ويماهنة حتى انت سير إلهي علمي سكما دين ميس إلا وكما تصالي لو تصاعي سيدا سوكال فنقرأ وجوسي نقرة جوسين أو نقرتين أما الله بجو من البحر بدأ فقال وحيد الخضر يا موسى ما نقص علمي وعلمك من علم الله علمي قاعدون ما يو إلا كنقرة هذا العصفور شمبر كاس جوسين تسوكل في البحر أو جوسي فعمد الخضر وقصدي إلى لوح أو من ألواح السفينة دون تمارة الواحد إذا كمله فنزعه وسيب الواحد دونته يكون صعطي oo maartay garoonka hoose u ahaay ayuu mid kamid soo siiyay faqala Musa wuxuu yiri warniyo waa sidii xaalkaagu waa sayn waay Musa nin kullu ahaa sida daraadeed waxa la isku daray isaga iyo Harun Xaliim oo ahaa la yiri waa laba nin oo ninna maartay meesha kuleelka looga baahan yahay ayuu gali jiray ninkan meesha dejinta sidaas oo kale maartay laba nabiyina ahaayeen maartay sidaas oo kale قوم قلوا حملونا نسو حنبارين ونسو قادين من غير نول أجر الآن عمدت واحد أقصدي إلى سفينتهم دون تودي فخرقتها مركز الله عيسي لتغرق أهلها سيادتك ومارت أمها شوديس ورني ما حتى تربل ميكرا يا دوات هذا كان تيبا مارك دون تياد بعد إن نلغر دون هذا ما هوس لقبحي بيها سوقلية وقدوم يا سومان يبقى تراسات كان تيبا قال وحيري ألم أقول ميانا كورن كدهن إنك أدو لن تستطيع ما أودي معي لجركي صبر قال وحيري لا تؤاخذني هاي قبن بما نسيت وحل المامي ولا ترهقني هنا يقولين من أمري أرنكي عسر عليس يعني
أرنتنا هيقول عسليني يفوض ذي ما ركت وحن هالمامينا هاي قبني. فكانت الأولى مركا أول رئيس وحي من موسى نسيان الهلمان وبيسوي أيو ما رأي سياسة فيه. فانطلق ويسعدان فإذا بغلام وحي مكي بأركان ويل يلعب مع الغلمان ويلش العياري. فأخذ الخضر مركا وحو قبتي بالرأس مدحيسة من أعلاه كورو كقبتي فاقتلع رأسه مدحيسه سوسي بيده قعنتيس سيجير للرجين أيوكلا هم مدحي كبحي شك وهو كدرم. فقال موسى مركا وحويري أقتلت مياد شيء نفسا نفتاس زكية طاهرا بغير نفس نفك العدل من تنبي أن لهين وبريئه ولما أن قهن قارن وحبا أن لك قريمين مياد هدنا قدر تيوين. قالوا حوير ألم أقول لك ميانا كدهن إنك أدو لن تستطيع ما أود معي لجركي صبرا. فانطلق ويتجان حتى إذا أتيا مركي أي أتجان وقارين أهل قرية مقالة ضدقا استطعم أهلها dadkeedii ay cunto weydiisteenoo istidaafu maaragtay way marti soor weydiisteen marti qaad ayay dhahaan fa aba weydiideen ay yudayifuhuma inay marti sooraana weydiideenoo waxba idin siin maynayaan fawajadaa waxay heleen marka fiiha magaalada dhexdeeda jidaaran derbi oo yuriidi doonaya ayan qadda inuu dhaco derbi dhici raba ay arkeen waa meesha isticaarada dhahaan iyo majaaska iyo derbiga doonaya inuu dhaco ما سياسة. قال الخضر بيده قال أنا وفعل سومالينا واستعمالنا مارت سانا إيري واحد كودا وان سميه معنا ساسا كودا وروح انسان ده هيداس لغمو وضو أفكا كده كعنت كسمي مارت. قال الخضر وحو يري بيده كعنتيسة أيو وحو كسمي أيوه معناها دربي سيدعي وقعنتي ساعة وقبتي فأقامه وتوسي مركا قالنا وحو يريها إزلين يعني وحو كسمي قعنتي ساعة وقبتي فأقامه وتوسي قعنتي بكتوسي. فقال موسى وحو يري لو شئت هدي أدوني لهيد لاتخذت وحاد يلا لهيد عليه جيت كان توسينتيس دربيقا أجرن أبال مرين قولنا قاسي حتى ماشا وقاعدة نواي ساعة meeshaanay nooga dagatay hadaad derbiga ma toosi kartid inaad tiraahid ma aragtay soo socda ijaar bixiya aniga derbiga idin toosiye meesha ma aragtay ha ka timaado ma aragtay niman ihsaan la maane waa sidaas oo kale la taqata alayhi ajran abaal marin iyo ajr iyo ujurad weydiisalahay qaal wuxuu yiri hada firaaqu bayni wa bayni hada kanu firaaqu bayni wa bayni وكلا تجني أنا يعدي هل كان أنكو كلا معنا يا قال النبي وحيري يرحم الله موسى الله أنحرسته لو وددنا وحن جعلنا لو صبر إنه إسكسبره حتى يقص علينا سن نلوق قصي من أمرهما أرهما كلو نحمري سقصوا في دراته علمك كلو لو نحمري نقولوا شيء إنه إسكسبران ما رتجعلنا هنا سياسة كله. marka xadiiska marka waxa laga qaadanayaa tawaaduca nabigaas cilmiga maaragtay u doonto waxa kale laga qaadanayaa cilmiga in loo safro mashaaq iyo dib maaragtay loo maro waxa kale laga qaadanayaa in qofku uusan dhihin mahma balaga min al-ilmi dadka ana u cilmi badan laano Muuse wixii lagu qabsaday waxa ahayd ana a'lam sidaas dadka yaa dunida joogo cilmi badan ana a'lam marka maxaa laga rabay an yakila al-ilma ila Allah inuu cilmiga Allah u tala saarto yiraahdo cid dadka adduunka joogo cilmi badan ilaahay baa garanaya taas laga qaadanaya arinta khadir ku saabsanna xadiiskan dad fara iyo aayadaha suuratul kahf ku jiro dad badan si khalad u adeegsaday oo waxay yiraahdeen cilmigan zaahirka ah iyo quraanka iyo xadiiska dadka aqbiyada ah iyo dadka caamada ah loogu tala galay qofku haduu marka uu nin shaatir yahay ama uu yahay nin manzilo gaaray arrimahan ma quseeyaan asiga fiiladiis waa fiilad dirito sida khadir oo kale ala dool halkaas ka iimaanaysa marka taasna waa sidaan idin sheegnay khadir nabi uu ahaa adiladii aan idin sheegay ayaana maaragtay uu nabi ku ahaa arrimahan hadda uu sameeyana waa arrimo dhamaantood ta'wiil loo heli karo لأنه فأما السفينة كانت مساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة
asma marka waa xikmada ku jirta oo sharciga wuxuu yahay akhafu dararayn laba dhib mid ka yar intii doonta dhan laga qaado lahay meeshaan dib laga kabanaya bal horta baasha ceeb u yeel si aan ninkaas ay uga harto wiilkana wuxuu yidhi sidoo kale wuxuu fasaadinayey wiilku muxuu ahaa ama algulaam fakhashina an yuriqahumaa طغyaana wa kufra aabbihi iyo waalidkiiba aad u jeclaa marka inuu gaalo ka dhigo ayadana inay waalidku gaalo noqdaan iyo wiilkan in la qaado yaa fiican in wiilkan la qaado fiican ayadana sidoo kale marka waa akhafu dararayn wacdeed ta kalena min baab alixsaan weeye oo ayadu waxa weeye idfac billati hiya axsan ninkii aad kaa seexda adigu ha ka seexanin wax sii ninkii ku xumeeye sidaas oo kale ayaduna wax dhibaataa ma lahan marka wixii uu sameeyey o dhan waa wax sharciga looga helayo ta'wiil saa'iqa maaragtay sidaas oo kale baabu man sa'ala wa huwa qaa'im inaan dhammayaan ku talagelaya lakin ma garanayo man sa'ala ruuxii wax weydiiyey wahuwa qaa'im isagoo taagan caaliman jaalisan caalim fadhiya marka qofka caalimka ahoo fadhiya qof taagan inuu wax weydii karo marka waa intaas oo caalimku inuu fadhiyo qofkaanuna taagan yahay ixtiraam darre iyo midna inaysan ahayn man sa'ala ruuxii wax weydiiyey wahuwa qaa'im isagoo taagan caaliman caalim buu weydiiyey caalimkaasu jaalisan fadhiya caalimku wuu fadhiyaa qofka saa'ilkauna wuu taagan yahay marka inay banaanta can abi muusa alashcari waxaa laga wariyay cabdullahi ibnu qays radi allahu canhu lakin qaala wuxuu yidhi jaa'a rajulu nin baa yimid ila nebiga ayuu yimid faqala wuxuu yidhi ya rasuul allah ilahi rasuulkiisiyow ma alqitaalu fii sabiili illah dagaal ilaahay jidkiisa lagu dagaalamo ilahay dartii loo dagaalamo muxuu yahay fa ina axadana annaga naga mid a yuqaatilu wuu dagaalamayaa qadaman caro qolo uu caraysan yahay xaq iyo baadil wuxuu ugu caraysan yahay ba ha noqotee ayuu iskala dagaalamaa uu yidhi wa yuqaatilu wuu dagaalamaa xamiyatan danaano qolo qoladiisa maarata wax u geysatay iyo ama qabiilo ahaan iyo ayuu maaragtay u dagaalamaya hadduu rabo mid ka mida ayaa maaragtay ri'aaso raadinaya mid ka mid a xoolo raadinaya waxaas o dhan maa iska jireen yaa ah marka fii sabiilillah qaala wuxuu yidhi rasuulku man qaatala ruuxii u dagaalama litakuuna inay ahaato kelimatullahi alle kelimadiisu hiyo alculya midda sarrayda fa huwa midkaasaa fii sabiilillahi ilahay jidkiisa ah marka rasuulka waxaa la yidhaahdaa yacni wuxuu ugu jawaabay kelima jaamica waxyaabihii oo weydiiye o dhan waa ka leexday qofka fii sabiilillahi waa kuwa kaas mid kasta oo aan ahayn litakuuna kelimatullahi hiyo alculya ama maal ka raba ama qolo u caraysanya la dagaalamaya ama daraaro qabiil wadda ama madaxnimo ka raadsanaya kullu haadaa ma ahan wey marka qofkii u dagaalama litakuuna kelimatullahi hiyo alculya marka xadiidkan qaybihiisa kale ayay ku jirtaa lafdigiis kama muuqata haddaysa adinka ikaga muuqan waxa loo baabaystay inuu rasuulku fadhiyey ninka weydiiyana taagnaay meeshan kama muuqato laakiin xadiidka kale wuxuu leeyahy abi muusa alashcari rasuulku markuu ninkaa u jawaabayey rafaca ra'sahu ilayh korow u fiiri arrintaasna uma samayn uu leeyahy ilaa annahu kaana jaalisan rasuulku wuu fadhiyey ninka weydiiyana waa taagnaa marka matalan qofkaa taagan adigoo fadhiya wax ku weydiiyey markaad wax u sheegaysid inaad xoogaa kor maarata inaad qofka weliba markaa u jawaabaysid aad siga fiirisid marka taas weeye marka waa inaan taas ku baraarugnaa baabka ciwaankiisa iyo waxa ku qoran halkaas iska waafaqaya laakiin adinka idima qorna marka sidaas macnaha ninkaan ugu taagnaay rasuulkuna ugu fadhiyey markuu rasuulku uu jawaabayey rafaca ilayhi ra'sahu madaxiisu kor uu qaaday marka abu muusa wuxuu leeyahay rasuulku saa uma samayn ilaa annahu kaana jaalisan kan saa'ilka una wuu taagnaay marka saas wey marka kitaabka asalkaa ay ku taallaa marka baabu qowli illahi tacaala ilaahay qowlkiisa ayuu baab u yahay wamaa uutiitum laydima siinin min alcilmi aqoonta xaggeeda ilaa qaliilan wax yar mooyaane aqoonta dadka la siiyey waa wax aad u yar wey maa can cabdillahi bni mascuud waxaa laga wari radi allahu canhu allaha ka raadi noqdee qaala wuxuu yidhi baynaa goor anigu amshi aan soconayo maca rasuulillahi ilahay rasuulkiisa la jirkiisa fii kharibi lmadiina magaalada madiine la yidhaahdo meelaheeda aan dhisnayn oo iska qashin qubka ahoo kharib waxay kasoo jeedaa caamir meesha camiran ayaa la yidhaha waa magaaladii kharibna waxa weye waa goof camal meel iska goof ahoo oo maarata waxba iska dhisnayn oo iska kharib ah ayaan maraynay u yidhi walxaal huwa rasuulku yataka uu maaragtay cuskanayo calaa casiibin maarata ul oo macahu la jirkiisa ah
ay yactamid uu cuskanayo yataki marka waxa laga wadaa cuskashada marka qofku socdo khaasatan markuu cuslaado sidaas oo kale cuskanayo ala casibin waa ul oo macahu marka ushaasna waa ul jariidka jariid nakhli ah laanta maaragtay geetimireedka ul ka samaysan ayaa maaragtay la yiraahdaa famar wuxuu rasuulku soo maray binafarin koox oo min al-yahuud yahuud ah marka yahuudi dhexdoodii wada hadlayaan faqala ba'dhum qaarkood waxay yiraahdeen li ba'din qaarka kale saluhu an ruux waruuxda weydiye ruux qala ba'dhum qaarkood waxay yiraahdeen la tasaluha weydiinina la yaji'u si uusan ula imaanin fiihi ruuxas dhexdiisa bishayin shaygaas takrahuunahu aad ka hanaysin yani waxaad weydiisiin si uusan waxaan anagu ka hanayno noogu sheegin waxba weydiinina لا يجيء لا يجيء انت صبا ما رغتي وا لو ضبدي mid waa iska marfuuc oo istinaaf la yaji na waxa weeye si uusan ula imaanin way mar jawaabi u tahay nahyiga sidaas oo kale فقال بعضهم قاركود وحيران لا نسألنه لو والله نسألنه يعني ويديننا والله ويديننا sidaas oo kale فقال رجل منهم من ayaga kamida wuxuu yiri فقام وحا استاغ عفوا رجل نين ومنهم ايغا كميدا فقال وحوري يا ابا القاسم ونبي محمد صلى الله عليه وسلم ما الروح ما هي تهي فسكت وامسي رسولك فقلت مركا وحان اسيريو يري عبد الله بن مسعود هلاي انه يوحى اليه رسولك ولو وحيونيا فقمت مركا وان استاغي فلما انجلى عنه مركو رسولك وكفيني شدة الوحي يا لغا وحي مركو رسولك سو دغايو وحي وادغ إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا ها وليسكي مركو كفينمي وفضادي قال وحيري عيدنا سو دغتي ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتوا من العلم إلا قليلا مركو قرادها سن أنا وأخرنا ويري سيدا كتابك وين كو قران ها ما هنغلط ها وما أوتيتم من العلم إلا قليلا لكن وقرأ شادة ما هن قريين كسبعة هي عشرة منا ما هتكمل معه المعرض يعني عبد الله بن مسعود ساسا أنا وأخرنا وما أوتوا لما سينين أي من العلم علم حقيسه إلا قليلا وحير مويان يعني وحوية قفك إنسان قصورك علميgiisa iyo garasho daradiisa ay calaamad weyn u tahay ruuxda anaga nagu jirto waxa ay tahay iimeeshi nooga jirto inaan waxba ka garin wax anaga wax baarsana marka sidaas oo kale waa cilmigeenu soo yeeriyo marka kitaab waxa ka qoray muxuu ahay ibn al-qayyim kitaab ruux la yiraahdo marka ruux iyo naf iyo waxyaabahaas maxay kala yihiin halkaas aad ka fiiri kartaa laakiin waxa weeye waxyaabo kasto la sheegaba قل الروح من أمر ربي يكون فلان ما حد بقول الرادينيس كلام كثير إيو ما ركتي ما بقبحنا وما أوتوا من العلم إلا ما سنين ما ركتي علمي كتاب الروح مركا عن كلام كثير لما بحنا لأن هذا الشيء قاس كتاب كيس كمان معنى الآن وكسجية كتاب كاسو معناه وكهلا وحوي الروح ده يصير اللوجو ديو إيو ما ركتي يصير اللوجو فو إيو ما ركتي تزكية نفسي وكهلا كهالي ما هذه مقدمات أهان وهاليا وحياة علماء كيرادين حقيقة الروح ده وحي تاي وحاس لكن وجدي سو حويه إنه علم السلوك وي وفق مارس الروح دي سو تربيين العيمة سلاس فل يا مرك الروح ده نوامد الإنسان كوجر تصير راجحة لكن قاركود ملا قاركود روح وحال وقت الماوي جبريل قرآن كالروح حديث يا روح لغوت المامي القرآن إنه روحا من أمرنا مارت إنه يهي لكن مد هذا الوجه ده روح ذا أو بين الجنبين أنا وجه باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية ألا يفهموا من خص روحي كوغونية بالعلم علمك قوما قلو دون قوم قلو ذا كلاء سكدو ذا يعني سائر القوم انت كلاء كجري معناها dad gooniyo cilmi u sheegaya intii kale u sheegi maayo muxuu ugu diidayaa qoladan cilmiga laga qarinayo karaahiyata alla yafhamu inaysan fahmin oo la kaanayo way maaragtay inaysan fahmin oo la kaanayo
يعني واكي دهيي علي بن أبي طالب حدثوا الناس بما يعرفون dadku wax ay garanayaan u sheega ma waxaad jeceshihiin in ilaahay iyo rasuulkiisa la beeniyo sidoo kale wuxuu yiri maaragtay Abdullah ibn Mas'ud ma anta muhaddithan qawman hadithan la tablughuhum uquluhum dad maaragtay hadith uma sheegtid aqligoodu uusan gaarsineyn illa kana li ba'dihim fitna qaarkood ku fidnoobaya مثلا معناها قفكم مركو ددك wax u sheegayo inuu hadda xigmada la fiirso ayadoo waqti fidna ay taagan tahay oo fidnadu badan tahay kale مثلا inuu san ahadiista daahirkoodu yahay in imaamka lagu baxo kale inuu ka hadlay dad aan basically tawxiidka ba aan garanayn wala ilaaha illa allah macnihiisa garanayn inaadan uga bilaabin maaragtay aayaadkii sifaadka iyo ilaahay gacmo leeyahay iyo faru leeyahay لأنه عقلي سبا توحيد كورته مركه ورا الله بر مركه آيات كصفات إمام مالك وكلاساس ودي جدك عامة معناها الله بالله مركه ورا غرائبته وحيابها غريب كأهو ما نرت وقف كعصب زائد وعصب وزجرانين إن هذا مركه ورا وشيكتي وحكوا الرية في تنت سيدا سو كلمات سيدا درادي مارتي بصحابته واحد يجي جيران وكلماتي nin hadaad aragtid maaragtay dad laynayo oo kale xadiidkan mesela nimankii qaraaniinta hayo maaragtay rasuulka dhaceen geeli u dhiibtay oo ayagu jiran inta u yimaadeen markii caanaha iyo kaadida la sugu daray dadkii geela rasuulka jiray dileen geelina dhaceen waa la xasuuqay Soomahan waa la dilay indhaha marka waxay dhihi jireen maaragtay saxaabada waaweyn maaragtay xijaaja u sheegnin arintaas laana wuxuu uga faa'iideysanayaa shaqadan aan wado waaba shaqadii maaragtay la wadi jiray dadka dhanna saas ugu fasiray laana ninka waa mujrim ogta asagoo yani waa nin dambiila marka sidaas oo kale inaysan fahmin oo ay inta si kale u fahmaan ay sidaas oo kale qof walbana waa kii Abu Bakar wuxuu dhihi jiray Abdullah ibn Abbas kunu rabbaaniyiina kuwa dadka tarbiyeeyo alla ku xira aada marka wuxuu yiri rabbaaniyiinta lagu sheegay waaye alladina yuallimuna sigaara alilmi qabla kibarihi dadka cilmiga hoose kuwa baraya intuusan kuwa waaweyn isa gaareen marka hadba qofku inta ay garaadkiisa cilmigiisu yahay saax loogu sheego amal sidaas oo kale sida maarta loogu sheego waliba macnaha culimadu waa kala duwan waxay yiraahdeen markii aad darsi aad dadka baraysid way markaas laakiin مثلا markii su'aal lagu weydiiyo su'aashaas sida xaqa kama leexan karto yani waa dhihi kartaa marmarka si kale uma sheegi kartid marmarka qaarkood waa dhihi kartaa غير مناسب way hadda ka hadlimayo laakiin sida xaqiiqadeedu ay tahay macnaha bilaan waa lagu weydiiyo bil cilmi kitmaan cilmiga markaas noqonaysa markaas ama Anas ibn Malik radiyallahu anhu lakradna qaal wuxuu yiri kana Muaad wuxuu ahaa radiif nabi rasuulka fangalkiisa على الرحل مارتي هرده يعني دمير أيوه رسول صلى الله عليه وسلم ولفن قشنايو قيبت الدنبع مارت وكسراوي مارت سير وينك غلا عادين يعني فقال وحي رسول يا معاذ قال وحي لبيك يا رسول الله إلى رسولك سواك أجيبي وسعديك وانكو أقبلي مارتي وانكو تاغيري مارتي سداسو كلوي مارتي هوكو أن أيديه جرا ويذكر لغبيدين يعني لبيك أجبتك إجابة بعد إجابة وانكو أجيبي وانكو أقبلي وسعديك يعني إسعادا بعد إسعاد وانكو فرح سنهي ومارتي وانكو اللي يبان سنهي سلاح سوكال المارت قالوا حويري يا معاذ قالوا حويري لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثا سدح جروير قالوا حويري ما من أحد روح مجره ويشهد قرية أن لا إله إلا الله حق عبده والله أنه سجل والله حق أنا هين لا معبود بحق إلا الله عد حق لو عبده مجرته أن الله هين روحي ساير هذا وأن محمدا رسول الله نبي محمد رسولك إنا إياها قفك قرته صدقا من قلبه صدقا كالرمين أقرة من قلبه سأكرمين عي إلا حرمه الله وحو كحرمه على النار نارته إلهي كحرمه marka culimadu waxay yiraahdeen
حديث كان معنيه سكيني ما إنه اللفظ كليه لأنه صدقا من قلبه أيا وحي كينيسا همينته أيا وحي كينيسا عملك لأنه آيات القرآن كان محي هيت والذي جاء بالصدق وصدق به مركا وصدق به داسو ما أهين أفك كليه وكرمي وأبو بكر وعملك وكدر وحده ما يكدر وي مركا سداس وكله إلا حرمه الله على النار مدي ديسو قف ذنبي وين قلي إن أو عرضة يهي إن مركه هراء هدو إن كسو أهل التوحيد يهي لقوه فوه ذنبي ومارت وقاله لأنه سيدان إذين شيء واحد بدن وحوي الدلة وحلقة قاطع مجموع هذا معناها حديث القرآن كأنت الله جمعيه أي معناها أي كينيان سداس لو جمعيه ما هنا هل ميل كليه هذه قولان حديث كان وحا مرجئة كليه قب سكرت ذي ربان مركا مid kale waxa qabsan kara khawaarijta laakiin xaq waa la dhexdooda maaragtay qaal wuxuu ya rasuulullaahi ilaahi rasuulkiisiiyow afala ukhbiru bihi an-nas dadka miyaanan u sheegayn faystabshiru ha bishaaraystaan maadaama qofkii tawxiid la yimidba uu janno iska gelaayo dadka miyaanan u sheegayn ha bishaaraystaan qaala wuxuu yidhi idan yani hadii riwaayad qaarkood waxay leedahay أخاف أن يتكل وحن كبقى إني إسكت ثلاث دارتان وعمل إسكت عفان إذن هدي عاد مركا أوشيكتد يتكل ويتلسارنا يعني إيه أوشيك ويماركت يمتنع عن العمل اعتمادا على ما يتبادر من ظاهره حديث كظاهر كيسا وحا كم مغضى توحيد كاللقود واغكلي إنه كف ليه أي اعتماديان مركا سي ماركتي ay tala saaranayaan oo amalka ay ka tagayaan marka uu sheegay rasuulka sallallahu alayhi wasallam waliba waxa ay riwaayad qaar kood sheegayaan in arintan uu uga soo horeeyay Umar ibn Khattab oo la kulmay Muaad markaas ku yiri rasuulka saasan ka maqlay dadka inaan u sheegaan rabaa markaas uu ka joognay markaas rasuulka isla soo noqdeen rasuulka markaas sidii Umar uu ku waafaqay wuxuu yiri ha u sheegin hay isa tala saaranin si isa amalka maaragtay u taginin وأخبر بها معاذ أرنتها وشيغي عند موته هل سكن جوجي عليكم والله وانا